Soomaaliya ayaa ugu horeysa wadamada loo soo calaamadeeyay dhimashada hooyada ee umul raaca boqolkii kun ee haween ah ee dhalaya waxa umul raacata 732 kamid ah wixii ka dambeeyay 1990 ilaa 2016 sida ay sheegtay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan dhallaanka. Haddaba warbixintan ayaa ka hadlaysa kororka ku yimid umul raaca waa xaaladda umul raaca ee Soomaaliya. Fadhi Maxamed Axmed ayaa diyaarisay. maamooyinkanu waxay ku foolanayaan gobollo waxay ku foolanayaan degmooyin isbitaalka ka fog maamadii bareesharkiya ku kaca ayada dhanbalmanore oodamay noqon way bararaysaa ayadoo tabcaan oo cunuga ama ku dhintay ama ayadii tabcaan ahaana loo keenaa waxaan ognahay 731 tira boqolkii kun oo naagood dhashay 731 camal baa dhimata wasaaradda caafimaadku waxay ku dartay si arinta loola dagaalamo mudnaanta koowaad oo caafimaadka Soomaaliya arintaas ah waa mid ka mid ah dhaqdhaqaaqayga shaqo anigu kurgalay jiritaanka warar sheegaya inuu kor ku yimid heerka umul raaca Soomaaliya gaar ahaan koonfurta iyo bartamaha dalka sanadihii dambe waxa ay maraysaa xilligan heerka ugu sareeya xaaladda umul raaca ee Soomaaliya oo ah inay geeriyooto hooyadu markay umusha kadib iyo dhimashada carruurta ee da'doodu ka yartaa 5 sano ka hadalka xaaladdan marka la joogo Soomaaliya waxa ay maraysaa meesha ugu sareysa dunida oo dhan gaar ahaan koonfurta iyo bartamaha dalka boqolkii kun ee haween ee dhalaya waxa umul raacata 732 haween ah wixii ka dambeeyay 1990 ilaa 2016 sida ay sheegtay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan dhallaanka ee UNICEF waxa saashay dhimashada dhammaan haweenkan geeriyooday markii umuleen kadib inaanay helin adeegyadii ay u baahnaayeen gaar ahaan daryeelka caafimaad oo ay u baahan tahay inay hesho hooyada uurka leh si ay wanaagsanaato xaaladda caafimaad ee hooyadaas iyo cunugeeda uurjiifka ah loona badbaadiyo noloshooda sida ay sheegayso warbixinta hay'addu agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee dalka Dr. Cabdullaahi Xasan Cali ayaan weydiiyay waxa ay kala socdaan warbixintan iyo waxyaabaha uga baxay oo ay wasaaraddu wax ka qabatay umul raaca Soomaaliya inuu aad u sareeyo wax sir ma aanu hadda UN in inoo soo sheegto looma baahno waxaan ognahay 731 tira boqolkii kun oo naagood dhashay 731 camal baa dhimata wasaaradda caafimaadku waxay ku dartay si arinta loola dagaalamo mudnaanta koowaad oo caafimaadka Soomaaliya arintaas ah qodobada hadda loo dejiyay iyo waxa la yiraahdo istaraatiijiga wasaaradda caafimaadku wuxuu ku saleysan yahay tiradaas ayada ilaa 2000 ilaa 5 sano gudahood in laga dhigo ilaa 400 oo half hoos loo dhigo wasaaradda caafimaadku arrimahaas dhowr qodob ay ka qabatay waa mar koowaad waxay go'aansatay inay soo saarto umulisooyin aqoon leh oo tayo leh qaarkood haweenka uurka ma fahamsana muhiimadda ay u leedahay iyaga iyo ilmahooda uurka ku jira inay joogteeyaan booqashada isbitaalada loogu talagalay in lagu daryeelo haweenka uurka leh si ay u helaan la talin iyo daryeel caafimaad oo noloshooda muhiim u ah sida uu gobjoog u sheegay Dr. Maxamed Salaad oo ku takhasusay arrimaha haweenka kana howlgala isbitaalka hooyada ee dhallaanka ee Banaadir waana mid ka mid ah xaaladaha sababa umul raaca sida uu sheegay doctorku sababtaasuna waxay noqonaysaa maamada waxay iska joogtaa gobol ama xitaa magaalada qaybaheeda dad macnaha aan
ilbaxnimadooda aysan hormarsanayna jirta waxaa dhici karta maamadu inay noqoto membrane rupture oo fluid leakage oo dhaco oo fluidkii uu ka baxo waxaa iska dhacda maamadu inay trauma ku dhacdo oo trauma ay sababto aysan maamadu aysan ogeyn ay macnaha ay iska qarsato kadib ayaa waxa noo imaanaya case-kiyo safiir ah maamadii sepsis ay qaadaysaa cunugii affected noqonaa cunug caloosheeda waxa uu ku dhimanaa macerated ay noqonaysaa ayadoo affected oo high fever ay keenaysaa waxay kaloo haddana dhimashada keeni kara in maamadii ama cunugii uu dhinto in ay maamadu ay eclampsia oo convulsion ah ay ku qabsato gobolada fogfog bisha ugu horeysa ee sidka gabadha uurka leh ilaa ay ka dhalayso ayaa loogu talagalay inay la xiriirto dhakhtar si gaar ah u yaqaan xaaladeeda iyada oo la joogteynayo dhowr talaal oo loogu talagalay in la siiyo dumarka uurka leh si looga badbaadiyo xaalad halis ah oo ku timaada xilliga foosha sababtana dhimasho degdeg ah laakiin waxaan taasi suuro gelin in la helo qaar ka mid ah dumarkaasi oo u arka in uu talaalku wata khatar caafimaad oo naftooda ku timaada sidoo qabo Dr. Cabdiqaadir Cabdullaahi oo bartay cilmiga daryeelka haweenka uurka leh iyo caruurta kana shaqeeya isbitaalka Umma dibta ugu badan waxay ka jirtaa sida sharciga uu yahay hooyada markii ay uurka yeelato xilliga hore waxa loo baahan yahay inay hesho daryeel caafimaad afka qalad waxa lagu yiraahdo antenatal care ka gormay bilaabanaysaa waxay bilaabanaysaa as early as maamada ay uurka u yeelato sida ugu dhaqsiyaha badan ee maamada uurka ay u yeelato waxay u baahan tahay daawooyin joogto ay u qaadato waxay u baahan tahay talaalo waxay u baahan tahay wacyigelin afka qalad waxa lagu yiraahdo health education raashinada ay qaadanayso raashinada u fiican taa waxaa barbar socoto inay hesho la socod dhakhtarka uu sameeyo ama follow up waxa lagu dhaho afka qalad guud ahaan bulshadana Soomaalida waxa moodaa intaas oo dhan in laga gaabiyay uma shaqeeyaan sidii loogu talagalay hadda MCA-yada ku yaala dalka gaar ahaan kuwa gobolka Banaadir si meesha looga saaro arintan wacyigelin fara badan waa muhiim inay helaan dhammaan haweenka uurka leh si sanadaha soo socda hoos loogu dhigo tirada haweenka ah ee umul raaca u dhimanaya waana sababta ay wasaaradda caafimaadku u tababaraysa xilligan shaqaale caafimaad oo arintan wax ka qabta wacyigelinna u sameeya haweenka gaar ahaan kuwa uurka leh iyaga oo mid u tagi doona dhammaan xaafadaha ku yaala gobolka Banaadir oo ay tiradoodu ka badan tahay 300 oo qof sida uu marka la sheegayo agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka yaa wasaaradda caafimaadku waxay culays saartay in la sameeyo wax la yiraahdo marwo caafimaad oo tayo leh oo xaafad u taga oo guryaha taga oo hooyin wacyi-geliya kaliya maahan idaacadaha iyo dadka Soomaalida darbiyada waxa ku dhagaan uma akhriyaan hooyooyinkuna inta badan idaacad ma dhageystaan saas daraadeed si xayinimo wasaaraddu waxay go'aansatay inay tayeyso marwo caafimaaddaas xaafadaha galaysa oo MCA-yada la shaqeysa oo xaafadahana ka shaqeysa maxaa laga rabaa inay sameeyaan dhammaan haweenka uurka leh si markasta xaaladooda caafimaad ay u wanaagsanaato iyaga iyo ilmahooda uurka ku jira marka laga soo tago qaadashada talaalka la siiyo markay uurka leeyihiin haweenka waa kan mar kale Dr. Maxamed Salaad oo sharaxaya marka waxaan dhihi lahay maamo kasta oo Soomaaliyeed MCH-ka ugu dhow oo lagu caawi karo cunuga iyo ayadaba inay tagto marka sidaas ayaa looga hortagi karaa khatarta ku imaanaysa complication kasta oo maamada ku timaada waa inay ku xirnaato isbitaal ama MCH-ka meesha ugu dhow halkaas si looga rangareeyo waxa ay u baahan tahay waxyaabaha taxadirka ah ugu fiican maamada horta nafaqadeeda nutrientigeeda nafaqadeeda in la saxo maamada inay ukun cunto inay beer la siiyo inay limbombeel ma cabto inay waxyaabo nafaqa oo ayadana cunugana wuxuu taraa inay isticmaasho saddexda bilood ugu horeydana waa saddexda bilood cunuga oo samaysmaaba folic inay isticmaasho feera folic oo ka qayb qaadanaya cunuga samaysankiisa taxadirkaas ayaa looga baahan yahay intii aysan u baahan in isbitaal la jiifiyo waa in intaas loo sameeyaa maamada haddii intaas loo sameeyo easily waxaa fududaanaysa in ay maamaduna fiicnaato cunuguna u fiicnaato yareynta kiiskan waxay u baahan tahay in lagu bixiyo dadaal xooggan iyada oo bulshada laga wacyigelinayo xaaladaha u keeni kara halis haweenka uurka leh sida ay wasaaraddu sheegtana waa ay u guntatay qabashada hawshaasi sida uu sheegay agaasimaha wasaaradda caafimaadka Fatxi Maxamed Axmed Goobjoog